Wararka imaanaya magaalada Muqdisho waxa ay sheegayaan in ka badan 24 saac lagu soo waramayo in la la'yahay Mrs Wall oo aad caan uga ah baraha bulshada gaar ahaan aaladda TikTok. Gabadhan ayaa dhowaan magaalada Muqdisho dib ugu laabatay waxaana ay ka tagtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Hase ahaatee waxaa la sheegay in xalay ay dad ugu wardambeysay xilli ay xaflad ka qayb galaysay. Dhalinyaro ka mid ah kuwa aadka isugu dhow yihiin gabadhan ayaa waxa ay xaqiijiyeen in la la'yahay ilaa iyo xilligan, isla markaana aysan ogeyn cidda afduubatay iyo halka lala aaday intaba. Cabsi aad u xoogan ayaa ina haysa. Waxaan la'nahay ilaa iyo hadda Mrs Wall. Xalayto ayaa inoogu dambeysay oo ilaa iyo hadda telefoonkeeda lama hayo. Sidoo kale meel kuma sheegno. Cid allaale iyo ciddii afduubatay ama wadatay ma garanayno. Waxaan ku jirnaa raadinteeda. Fadlan arrintan nagala howlgala. Sidaasi waxaa yiri mid ka mid ah dhalinyaradaasi. Waa arrin aad iyo aad ay uga naxeen dhalinyarada, iyaga oo meesha ka saaray in tani ay tahay prank, maadaama maalmahan dambe baraha bulshada aad ay ugu soo bateen dhalinyarada social media isticmaasho sida YouTube, Facebook iyo TikTok oo prankiyo dadka ku sameynaya kadibna xaaladda caadi ku soo celiya. Gabadhan caanka ku ahayd qoobka ciyaarka iyo sidoo kale sameynta majaajilada dhanka TikTok waxaa ku xiran in ka badan nus milyan oo qof. Ciwaanka ay TikTok ku leedahay waxa ay ku soo gashaa magaca Mrs Wall 2021. Waxaa ku xiran in ka badan 673,000. Waxaa la gareysay 14.4 milyan oo qof. Waxaana ay iyadu raacday 507 ruux. Ehelada Mrs Wall weli kama aanay hadal warkan. Hase ahaatee haddii ay tani xaqiiq noqoto waxa uu walwal xoogan soo wajihi doonaa dhalinyarada TikTok ee dalka ku sugan. Mrs Wall ayaa sidoo kale waxa ay mucaarad badan ku lahayd baraha bulshada, waxaana inta badan lagu dhaliilaa habka ay muuqaalada u soo duubto. Waayadii ugu dambeysay muuqaalada ay soo bandhigaysay ayaa waxay ahaayeen kuwo ay isku weerarayeen dad iyaguna baraha bulshada caan ka ah, isla markaana hawada waxa isku marinayeen aflagaado iyo hadallo aad u kulkulul. Hay'adaha ammaanka ee dalka weli kama aanay hadlin run ahaanshaha warkan soo baxaya. Sidoo kalena magaalada Muqdisho waxaa aad u gilgilay warka ah in Mrs Wall la afduubtay ama la qafaashay. Haddaba daawade waa maxay aragtidaada? Fadlan qaybta hoose ee commentiga inoogu reeb. Sidoo kalena muuqaalkan sii share garay si uu dad badan u gaaro. Mahadsanid. Kana mineen ifka doortayba layga oofsado waan xayaduun anigoo quraa illinkii socdo cidlay waxaa weheliyahe uu igaga tagay waan ooyayaa laymana arxamo waan ooyayaa laymana arxamo.